daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xidhan kanaalka fadlan like saar muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin haddii aad ku cusub tahayna subscribe saaro nagu soo biir gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada cusub السلام عليكم way shakiday maxaa si wali jawaab ma helin balse jidkii weynaa ay ku soo baxeen xaafadaha dhexdooda hadii ay dadku sida webiga u socdeen halkan sida badda ay u fadhiyaan waa iska weyn ee xaafada boqolaal qof ayaa isdhaafaya in ka badan ayaa taagan kali iyo wadarba inta waxaa dheer xayawaanka dadka la dhaqmaya ee meesha ka muuqda gaadiidka oo dhowr nooc ah ayaa isna jidka dhan walba ka jooga baaskiil walaalkeedii ka weynaa ee dhugdhugley tagaasi yaryar iyo ilaa kii waxaaba dhalay oo ee xamuulka dhammaan ishu way qabanaysaa najax waxay aad ugu soo dhowaatay nimco si aanay uga lumin ma aha meel lagu lumo sida ay u socotay ayay istaagtay nimco najaxna sidoo kale maxaa dhacay walaal ayay tiri halkan ayaynu ka raacaynaa matuutu balaayada matareenbaa haddaba daqiiqada kadib ayaa meel fog ka soo baxay isagoo ordaya midabkiisa cadda ayaa markiiba isha nimco qabatay sida looga bartay kirishbeyga ee albaabka ka laalaada isaga oo waxoogaa lacaga gacanta midig ku xajinaya ayay nimco indhaha ka wada hadleen waanu istaagay horteeda soo ful walaal waa kane najax ayaa aragtay inuu wuxuu yahay bascaasi iyada oo aan fikir badan ka gaadhsiin ayay kursi cidhiidhi salka saartay waa xabaal yar oo socota cidhiidhi kulayl iyo diiqad indhaha ayay bannaanka u lalisay magaaladuba waa wada matuutu afarta jahaba basas cad ayaa kala gooshaya inta taagan ayaa ka badan muddo markii ay socdeen ayay najax tidhi walaal lacagta miyaynu siinayn nimco oo u dulqaadanaysa aqoon la'aanteeda ayaa si qabow ugu tidhi walaal marka la degayo ayaa la siiyaa way iska aamustay qiyaastii 30 jeer ayuu sii istaagay ilaa ay nimco markii dambe ku qaylisay masow waa la joojiyey way ka degeen jidka ayay wax yar hore u raaceen midig ayay uga degeen markaas ayay nimca joogsatay najax oo cagaheeda iyo jidka ku mashquulsanayd ayaa kor eegtay horteeda ayay soo taallaa wax soo dhoweynaya Kampala International University albaabka qaybtu furan tahay ayay ka galeen albaab ay is arki doonaan maalin kasta dhowrka sano ee soo socda dhismaha cawlan ee garabkooda bidix kaga aadan ayay baashiisa socdaan iyaga oo ku hagaagaya ka kale ee dhalada inta ay dhex socoto barxadda jaamacadda ayay ishu ku xadaysaa qaybaha goob noqon doonta hooygeeda labaad meel ay subax kasta u soo kalahdo asxaab cusubna ka dhex hesho asxaab cusub talow miyaan u diyaar ahay asxaab cusub mustaqbalka dhan ayaa madow ma arkayso wax maanta dhaafsiisan runta marka la sheego in ay sariirtii ku noqoto ayay rabtaa dunidan foosha xunna ay ka xarooto kolba naqas ay soo tuurtaa naqas culays badan oo laa fududaynaya qayb iyada ka mid ayaa rabi noloshan cusub qayb iyada ka mid ayaa rabta in ay magaaladeedii ku noqoto waa qayb oo qalbigu hogaaminayo dhexdeeda ayaa la isku haystaa halgan dheer oo aan dhammaan doonin ayaa ka socda markii ay albaabka quraarada gashay dhismihii diiwaangelinta ardayda ajnabiga 2 saacadood kadib waxa ay ka soo baxday iyada oo 2 waraaqadood gacanta ku sidata waraaqo ay geyn doonto xafiiska dawladda nimco oo la yaaban sida fudud ee loogu soo dhameeyay hawsha inteeda badneed ayaa faraxsan naawalaal nasiib ayaad leedahay wallaahi waraaqaha si fudud dadka uma soo siiyaan najaxna ma xiisaynay natiijadan kulanka qof la jiidayo ayay ahayd qof laabtii hooyadeed u baahan basal silcaya bacadka Kampala baskii seenyi tegaya ayay soo raaceen wax yar kadibna sariirteedii ayay dhinaca kaga fadhidaa dhul shisheeye xuma ilaahu dhul shisheeye ii darana ma sidan ayaa ii dambeysay bal maxaa ii keenay meeshan dhulkaygii iga soo kaxeeyay dal iyo dad qalaad ayaan qalbi qurayla dhex joogaa waxaasoo dhan waxa igaga daran cidlo ayaan dareemayaa qof lunsan ayaan isku arkaa haddii aan hadli lahaa cid aan u sheego ma haysto taas ayaa igubaysa cid i dhegaysatana ayaan rabaa balse ma haysto waa dhib aniga igu kooban sacabka ayay kolba dhabanka marinaysaa indhaha oo aan libaqsanayna ayaa soo burqanaya gacantu marka ay qoydo ayay shalmadda adeegsanaysaa noloshaba maaniga ayaa arkay waa maxay sidani qayrkay guryihii hooyadood ayay joogaan werwer la'aan seexdaan dhowr usbuuc uun ka hor nolol kale ayaan ku jiray farxad ayaan ku seexan jiray aniga oo waaga raagsanaya magacayga meel laga yaqaano ayaan joogay aragtidayda la tixgelinayo qofkii aan dunida u jeclaa ayaan haystay isaguna waa u jeclaa
dhowaan ayaanu aqal galaynay boggii aan nolosha ka joogay waa la rogay anigana waxba la iima weydiin maantana waxa aan ahay ajnabi jacaylkaygii waan ka soo tegey dhulkaygii iyo waalidkaygii waan ka soo tegey igu culusaa waxay haysta rabbiyow iga dulqaad ma qaadi kare ilintii qaboobayd ayaa kulayl isku beddeshay dhamankeediina gubaysa oohintii aamusnayd ayaa cod soo yeelanaysa cunaha ayaa xanuunay way isku dhex daadatay si aan loo maqlin ayay naqaskii isku celinaysaa meeshani waa meel baas xitaa si xor ah uma ooyi karo way kacday weyso degdeg ah ayay qaadatay qolka dhexdiisana istaagtay jiho qaldan ayay u jeesatay ilaahayna waxa ay la hor istaagtay naf aan faraheeda ku jirin ragcaddii labaad sujuuddii u dambaysay ayay madaxa dhulka ka qaadi kari weyday ilaahayow imtixaankan waan aqaanaa waana fahmay inaad imtixaanayso ilaahayow intaa iigu jooji adiga ayaan kugu dhaartay naftaydu ma qaadi karto feedhahaygu ma awoodaan intaa in ka badan adiga ayaa wax walba awoode ilaahow sidan iidhaan waan ku baryayaaye 17 daqiiqo kadib ayay soo fadhiisatay iyada oo tawaqsan ayay atixiyaadka dhex carartay indho cascasna midig iyo bidix ula jeesatay kitaab ay shantada ku sidatay ayay dhabta saartay aayado ay ka raagtay ayay indho aan caadi wax u arkayn ku akhriday maalmihii xigay waxa ay ku mashquulsanayd howlaha jaamacadda garabkeedana waxaa joogay nimco oo la yaaban qofkan hadalka soo gaabinaysa wax badanna aan odhanayn waxa ay arkaysaa qof marka ay qoslayso dibnaha xoog ku kala jiidaysa qof qosolka jilaya jilis aad u xun way arkaysaa in ay wax qaldan yihiin mana saxayso waxa dhacay way isku cusub yihiin kuma dhiiranaysa in ay weydiiso dhowr jeer way aragtay iyada oo si hoose ilin iskaga masaxaysa dhowr jeer waa iska dhigtay waxaan arkayn waqti ayay rabtaa in ay siiso waxay u eg tahay qof og xaaladda ay ku jirto walow aanay ogeyn sababta ka dambaysa ayaamuhu way isbeddelayaan walow ay luudayaan maalmaha ayaa isku wada eeg subaxa oo ay indhacas la kacdo cuntada oo ay mar walba badh ka cunto wixii xafiisyada dawladda kaga xidhan oo ay soo dhammayso sariirta oo ay dhowr siyood u isticmaasho 10 jeer oo ay tukato intaa in ka badan oo ay beerka ka oydo hurdada oo ay u jiifsato 8 habeennimo saddex dhexana ay gamaado 3 toddobaad ayaa tegay ugu yaraan 10 kiilona way ka dhaceen faraha ayaa qoryo u ekaaday indhaha ayaa god ka soo jeedsaday waa maalintii labaad ee ay u kalaahdo waxbarashadeedii oo si rasmi ah u bilaabantay sidii qof dhiman ayay gaashaa fasalka cidna lama hadasho iyadoo oo maqiiqan ayay guriga timaadaa sidaas ayay ku waday ilaa ay maalin sabti ah 7 cisho kadib maalintay jaamacaddu bilowday ay go'aan gaadhay waa maalin ay fasax tahay guriga ayay ka baxday mana garanayso meel ay u socoto dhanka bare ayay u kacday luuqyadii ayay ka dhammaatay istaanka basaska ayay dhanka waqooyi ka martay indhaha ayay la raacday dadkii oo aad moodda in midba jiho gaar ah u socdo qof kasta waaye gaar ah ayaa dul hoganaya qof kasta nolol gaar ah ayuu nool yahay garoonkana waa la wada wadaagayaa cagta ayaa socodkeeda sii wadatay jidka leexadaba way la leexanaysaa ilaa ay ku soo baxday dhisme indhaheeda wiilashooda ballaadhiyey gidaaradiisa ayay awoodi ka muuqataa kaabado waaweyn ayaa dhulka ka bilaabma qaybta sarena ku xidha dhulka minaaradda dhinaca ku taala ayaad mooddaa in ay daruuraha madaxa la galayso weli dhisme sidan u weyn ma ay arkin waa masjidka loogu magac daray kadaafi madaxweynihii hore ee dalka liibiya hadiyad ayuu u siiyey dalka iyo dadkiisa muslimka ah hortiisa markay taagan tahay ayay dareentay in ay quraanjo leeg tahay kaabadaha waaweyn ayay kor u raacday barxadda weyn ee xagga sare ayay ka gudubtay dhismaha dedan markii ay cagta gelisay ayay dareentay qabow jidhka dhan saaqay 2 ragcadood kadib ayay dhankii bannaanayd u soo baxday kambaalo ayay hoos u eegtay dhisme kasta dadka ku dhex jira ayay ka fikirtay inta jidadka maraysa iyo inta meelaha taagan qof kasta gaarkiisa ayay uga fikirtay walow aanay korkooda ka muuqan haddana qof kasta culays gaar ah ayaa saaran qof kasta indhibaysa ayaa garbihiisa saaran sidaasoo ay tahay noloshu ma joogsanayso cidna looma joojinayo maanta waa sabti berina waa axad lama odhanayo najax ayuu dhib haystaaye berina sabti ka dhiga 2 arrimood mid ayaa ila gudboon in aan noqdo qof ay noloshu ka adkaatay iyo in aan anigu ka adkaado midda dambe ayaan doortay murugada iyo culayskeeda waan arkay mana aha meel la joogo bildhan ayaan maalin kasta ooyay waa qalad ma aha laakiin waa iska mushkilad wax kasta oo dhibaya waxa aan kaga tegayaa masjidka noloshaydii hore waa in aan iska ilaabo bog cusub waa in aan ku qoro xarfaha ay noloshani i bari doonto noloshaydana waa in aan jacayl dambe ka ilaaliyaa naftaydana aan horumariyaa waxbarashadan cusub waa in aan ka soo dhalaalaa magacayga iyo jacaylna hal weer ma wada gali karaan xaaraan ayaanu kala nahay
labadii habeen ugu dambeeyay si dhaqso ah ayay u gamaaday markasta oo qalbigeeda murugo bilaabo way ku xanaaqaysay isna wuu isnabay maalintii Isniinta ayay fasalka la soo gashay weji ka duwan kii ay horey u lahayd markii uu horeeyay ay indhaheedu qabteen arday ay fasalka wada dhigteen hal wiil oo Soomaali ah ayay indhaheedu ku dhaceen markiiba way ka jeesatay balse isaga ayaa ka jeesan dhankeeda ayuu soo dhaqaaqay salaamu calaykum walaal Maxamed ayaa la idhaahdaa adna ayuu ku yiri جلعيو قلبي نقيلكو وحياك قلدي وايو قرالكو ما بسحاني جلعيو قلبي نقيلكو وحياك قلدي وايو قرالكو ما بسحاني الدوفكا أذو قرايا هدنا قرص أوه انتادا الماضي يا قصارين الماضي يا قصارين الدوفكا أذو قرايا هدنا خرس أوه انتادا الماضي يا قصارين الماضي يا قصارين